kulanti haboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Anisa Daacad aalaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay guud ahaan geega Soomaaliyeed muuqaalka inta daawanaysana waxaan ku soo gudbin doonaa hogaamiyihii sagaalaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo weerar toos ah ku qaaday hogaamiyaha waqtigiisii ka sii dhamaanaya ee Xasan Sheekh Maxamuud Farmaajo oo ku tilmaamay Xasan Sheekh Maxamuud in uu yahay siyaasi aan waxba ka aqoonin siyaasadda gudaha iyo dibadda ayaa halkan kugu soo gudbin doonaa iyo sidoo kale eedeemo culus oo u jeediyay Xasan Sheekh Maxamuud waxa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doonaa Saciid Cabdullaahi Deni oo dhankiisa weeraray Villa Soomaaliya xilli uu ku sugan yahay magaalada Badhan xogii u dambeeyay ee khudbad uu jeediyay ayaa halkan kugu soo gudbin doonaa waa sidee xaaladda guud ee magaalada caasimadda Muqdisho faahfaahinadii u dambeeyay ayaa halkan kugu wadaagi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena subscribe inoo dhig gambaleelkana froosay ku soo gaaray muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay like inoo saar soo gaar asxaab badan wad ku maasantaa daawashadaada aynu ku bilaabno madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ku sugan magaalada Badhan iyadoona halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyay ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad ka dhaceysay magaalada Badhan Saciid Cabdullaahi Deni ayaa khudbadiisa waxa uu kaga hadlay dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee dalka Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu sheegay in haddii la gaaro 15 May oo ku eeg muddaxileedka madaxweynaha waqtigiisii ka sii dhamaanaya ee Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in Soomaaliya aysan ka jiri doonin wax la dhaho dawlad federaal ah waxa uu taasi bedelkeeda uu sheegay in aayaha ummadda Soomaaliyeed looga baahan yahay inay dhistaan shacabka iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo sidoo kale odayaasha iyo culimada ee deegaankooda uu yahay Soomaaliya waxa Saciid Cabdullaahi Deni carabka uu ku adkeeyay isla markaana uu ku faanay in Puntland ay ka adag tahay sugidda amniga deegaanada Puntland isagoo sidoo kale hadalkiisa intaas uu ku daray in ay diyaar ay u tahay in aayaha ummadda Soomaaliyeed ay Puntland ay ka shaqeyso haddii la gaaro 15 May oo ku eeg muddaxileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo waqtigiisa sii dhamaanayo inkastoo Villa Soomaaliya ay ku doodeyso dastuurkii ay ansixisay dawladda gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale baarlamaanka 12aad ay ku sheegeen in hal sano ay ugu harsan tahay balse markii la dooranayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu doortay dastuurkii ku meel gaarka ahaa ee 2012 la isla gartay hal mar waxaan isla daawan doonaa khudbadda madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxaan dib ugu soo laaban doonaa qodobka hogaamiyaha sagaalaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo weerar toos ah ku qaaday madaxweynaha waqtigiisii sii dhamaanaya ee Xasan Sheekh Maxamuud dowladnimada Soomaaliya insha Allah ta'ala cid kasta oo ku xadgudubta way waqtigeedu dhamaan doona laga bilaabo bisha soo socota 15 haddaan xal Soomaali isku waafaqsan tahay imaan dawlad federaal ah oo jirta ma jirto dawladda Puntlandna horey daraheedu u qaysan jirtay wixii intaa ka dambeeya madaxda hadda dawladda federaalka joogta waxba ka dhowrmeena waxaan ka dhowreynaa shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ayaan ka dhowreynaa xalka Soomaaliya waxaan u diyaarinahay inaan qaybteena qaadano dawladnimada iyo midnimadeeda ilaalino dhowrno shuruucdeeda وأننا ودفاعنا تصوماليا وبادئوبنا في اللي كسر لكن سرد وحنوه وأنا قدار من حد وبنتلان إلى علم تري من مدة فحرجينا يا إنا تكنسوني توبركي نبوكاتان إنا دتكي نو أريكتان إنا سرعي وهو قاستان إنا الدفاع سياد أو أكين جستيرو سياد كيسان كسونو إن باينو قوا محايا bulshadiina iyo annaga waxaana tusteen geesinimo wixii aan calmiskaad ka samayseen baa weli horteena yaalla oo caalamka hor yaalla taariikh aan duugoobin weeye taariikh aan hore u soo marin Puntland weeye dagaallo badan iyo dad badan oo isku soo duulay way iska difaacday laakiin tan qarniga 12aad waa taariikh suntan oo ay cadowga iyo ummadaha waaweynba noo qireen marka waa inaan ilaashanaa waxaasaan helnay sharaftaasaan leedihiin inaan ilaalisaan baa la rabaa kuwa suxun sheega ah inaad waarisaan baa la rabaa mujaahid fi calmiskaad ka yimid khaladka ka dhacay
raaci mayno laakiin waa waarinaynaa waxaan leenaha wixii aad geysataa ka weynaaye waxa yaryar oo aad samaysata ka waato maxaa yeelay wanaagga aad soo qabataa ka weyn khaladaad yaryar oo kaa dhaca madaxda dowladda iyo waxa aad markaa tabaysaan waxaa jira wadiiqo la maro iyo broses loo maro dowladda haddii facebooka lagalama hadlo taana ogaada intaasaan dhihi lahaa haddii lahayd wixii danihiinna ah madaxdiinna soo mariya sidai ugu dhaqsaahad badanna waa idiin soo gaaraysaa wixii aan la kari karin markaasna waan idiin sheegaya waxa layaa dibtaan noogu haddii aad daawato qodobka waa inoo muhiim aragtidaada inoogu reeb qaybta faallada markaana waxaan u weecanaynaa dhankaas iyo hogaamiyihii sagaalaad maxamed cabdulaahi farmaajo oo weerar toos ah ku qaaday madaxweynaha waqtigiisa sii dhammaanaya ee xasan sheekh maxamuud wareysi uu bixiyey maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxauu si toosa ugu weeraray madaxweynaha ee jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uuna ku tilmaamay inuu yahay xasan sheekh maxamuud amaba uu ku eedeeyey in uusan waxba ka aqoonin siyaasadda gudaha iyo dibadda intuba waxa uu farmaajo uu wareysigiisii uu ku sheegay in xasan sheekh maxamuud uu yahay in uusan sumcad lahayn isagoona ku eedeeyey in maalinba mid uu la joogo dalal ishaya waxa uu sidoo kale maxamed cabdulaahi farmaajo uu sidoo kale ku eedeeyey xasan sheekh maxamuud inuu yahay mid siyaasadda arrimaha dibadda iyo sidoo kale mid gudahaba aan waxba ka aqoonin waxa uu maxamed cabdulaahi farmaajo isagu isku sifeeyey inuu yahay shakhsi ay ku weyn tahay wadaniyadda isagoona ku faanay inuu dhiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uuna sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku eedeeyey in markii talada dalka uu la wareegay farmaajo uusan uga tagin wax saanad ciidan ah balse farmaajo uu sheegay in markii uu xilka uu ku wareejinayay xasan sheekh maxamuud uu ugu tagay ciidamo tiro fara badan oo huwaysan iyo sidoo kale saanada ciidankii loogu talagalay waxa uu intaasi uu ku daray maxamed cabdulaahi farmaajo in xasan sheekh maxamuud tookadii hore uu dalka uu ka tagayay uu hal sanduuq oo rasaas ah xitaa isan oolin dalka intaasina uu ku sheegay in xasan sheekh maxamuud isagu uu jaabka uu ku shubtay farmaajo ayaa soo hadal qaaday weerarkii lagu qaaday madaxweynihii hore ee dalka oo xasan sheekh maxamuud uu ku jiro waxa uuna sheegay in xafiiska uu joogay uu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu taliyihii hore ciidanka xoogga dalka Generaal Odawa Yuusuf Raage uu hogaaminayo weerarkaasi isagoona sheegay in ay tahay mid la isweydiiyo haddii Generaal Odawa Yuusuf Raage uu weerarkaasi hogaaminayay maxay tahay sababta mar kale ee xasan sheekh maxamuud uu xil ugu magacaabay isagoo og in taliyo Odawa uu weeraray su'aashaasi ayuu keenay maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sidoo kale ku sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu isagu sumcad dilayo marka loo eego khudbadii hore uu jeediyay sidoo kale kuwa xilligan uu jeedinayo ceeb weyn ayay ku tahay qof weyn oo mas'uul ah oo da'daas jira sheegtana inuu PhD haysto haddana shalay iyo maanta la isku horkeenayo waxaad is leedahay isagaba sumcad dilaya ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waa weerarkii ugu adkaa ee maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku qaado tan iyo markii uu xilka uu qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xilligan waqtigiisa gabaabsi uu yahay isla markaana ay ka harsan tahay wax ka yar bil inkastoo dawladda ay ku doodeyso in muddo hal sano uu harsan tahay maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sida aadka ugu soo horjeeda hanaanka ee madaxweynaha ee dalka xasan sheekh maxamuud uu ku maamulayo iyagoona sidoo kale uu ka mid yahay siyaasiyiinta ka soo horjeeda habka ee maamuuska ee doorashada qof iyo cod ee xasan sheekh maxamuud uu damacsan yahay waxaan idinku boorinayaa inaad dadaalkiina sii joogtaysaan kana fogaataan wax kasta oo caqabad ku noqon kara higsiga shacabka Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkeena marxaladan xasaasiga ah aan uga gudubno midnimo wada tashi iyo wax wada qabsi walaalayaal dagaalka uu dalkeena kula jiro argagixisada waxa udub dhaxaad u ah dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo u taagan halganka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ama arxanlaawayaasha ah ee caadaystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed iyo burburinta hantidooda anigoo taas ka duulay waxaan dhexda aan u xiranay dib u dhiska
ciidamadeenna oo ku shaqeynaya duruufo adag oo dhan kasta ah. waxaan xoogga saarnay inaan diyaarinno hanaanka dhismaha ciidamada qalabka sida, tayeenta tababarkooda iyo casriyeenta nidaamka maaliyadeed ee ilaalinta ama lagu ilaaliyo xuquuqdooda. dadaaladaas iyo qorshayaashaas aan hirgelinay waxay horseedeen in maanta ciidamadeenna geesiyaasha ah ay awood u leeyihiin hanashada amniga dalka, uuna gabagabo marayo qorshihii ay kagala wareegi lahaayeen amniga dalka ciidamada AMISOM oo u huray naftooda garab istaagga dowladnimada Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, siyaasaddeena arrimaha dibadda waxaan ku dhisnay wax wada qabsi, is-ixtiraam dalalka caalamka ah iyo ilaalinta sharafka iyo madax-bannaanida dalkeenna. marnaba maynan aqbalin in arrimaheena gudaha uu shisheeye soo fargeliyo, annagoo ka dhowrsanay tallaabo kasta oo hoos u dhigi karta ama u dhigaysa qabka iyo qaranimada Soomaaliyeed. marnaba maynan aqbalin in duruufaha nagu xeeran awgood nalooga faa'iidaysto oo la isku dayo in go'aamadeenna gacanteenna lagala baxo. siyaasadda gobonnimada ah ee arrimaha dibadda ee aan qaadanay waxay horseeday in markii labaad Soomaaliya loo doorto 4 sano gudaheeda xubinnimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. waxaa sidoo kale madaxweyne ku-xigeen aanu ka noqonnay golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, annaga oo haatan u sharaxan xubinnimada golaha amniga ee midowda Afrika oo ay doorashadiisu dhacayso dhowaan. sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay u diyaar garowday musharaxnimadeeda ka mid noqoshada dalalka aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee loo yaqaan Security Council-ka oo ay noogu dambeysay muddo 50 sano ka hor. walaalayaal, sidaad ogsoon tihiin waxaan xoogga saarnay inaan idin ilaalino ammaanada aan idin hayno. waxaanan meel marinay shuruucdii lagula dagaalami lahaa musuqmaasuqa, annagoo sidoo kale xoogga saarnay shuruucda lagu horumarinayo hanaanka maaliyadeed ee dalka, kaas oo abuuray daahfurnaan iyo hufnaan ay ka markhaati kaceen khubaro dhaqaale iyo hay-adaha caalamiga ah ee arrimaha maaliyadda. waxaan meel gabagaba ah soo gaarsiinay tallaabooyinkii aasaaska u ahaa ololaha deen cafiska, annagoo haatan sugayna miro dhalka dadaaladaas lagu cafinayay dhammaan deymaha culaysiyey dalkeenna. taasi waxay u baahan tahay inaan sii ambaqaadno qorshayaasha hawshaas lagu sii dardargelinayo iyo inaan xoojinno dadaalada lagu adkeenayo dimuqraadiyeenta dalka oo ay ugu horeyso ku dhaqanka dowlad wanaag iyo hirgelinta doorashooyinka. sida ballanqaadkaygu ahaa, waxaan mar kale aan ku celinayaa inaan marnaba aynan aqbali doonin in lagu takrifalo hantida danta guud iyo ammaanada ay shacabka Soomaaliyeed noo wakiisheen xaalad kasta oo aan ku sugannahay. waxaan mar kale aan farayaa hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta kala duwan inay ilaaliyaan hantida danta guud maadaama lagu jiro xilli doorasho ayna tahay waxa ugu horeeya ee adduun iyo aakhiraba la iskula xisaabtamayo. walaalayaal, mudanayaal iyo marweyn, waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhamaystirka doorashooyinka dalka. shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada. warmurtiyeedka shirkan wuxuu mar kale xoojiyey heshiisyadii arrimaha doorashooyinka ay ugu muhiimsanaayeen heshiiskii jahaynta doorashooyinka ee 17 Sebtembar
2020 oo ay si wada jir ah u ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka iyo shirarkii kale ee madasha ee ku aadanaa fulinta hanaanka doorashada iyo xal u helista tabashooyinkii ka soo laabtay habraacyadaas. Soomaaliya maanta ma joogto xilli la isriixo, la iscolaadiyo, lana kala qaybsamo. Dhammaanteen waxaa mas'uuliyad naga saaran tahay inaan dhowrno sharafta iyo dowladnimada dalkeenna. Jidka kaliya ee looga baaqsan karo caqabadaha waa in madaxda dowlad goboleedyada ay qaataan doorkooda hogaamineed ee kaga aadan fulinta iyo dhammaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee haatan socda. Danta gaarka ahna laga hormariyo xasiloonida iyo danta guud ee dalka. Mudanayaal iyo marweyn, madasha wadatashiga qaranka waxay mas'uul ka tahay hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan dhammaan heshiisyada aan horey u soo sheegay oo saldhig sharciyeed u ah una fududeynaya sidii ay u dhammaystiri lahaayeen doorashooyin daahfuran oo ka turjumaya himilada shacabka Soomaaliyeed. Sidaas awgeed waxaan ku adkeenayaa madaxda madasha wadatashiga inay ka dhabeeyaan fulinta qodobada ku xusan warmutiyeedkooda ayna hirgeliyaan jadwalka doorashada oo ay isla qaateen oo si cad u qeexaya muddada lagu dhammaystirayo doorashooyinka dalka. Mudanayaal iyo marweyn, shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan isqabqabsi siyaasadeed iyo cagajiid lagu sameeyo hanaanka doorashada. Waxaan alla ka baryaynaa inuu doorashadan noogu dhammeeyo jawi nabdoon, naguna hago dhabaha horumarka iyo wixii xogay macluumaad ee ku soo kordhay qodobada idin soo gudbinay muuqaaladeena xiga iyo idin kugu soo gudbin doonaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaran muuqaalkeena subscribe inoo dhegan baleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga. haddii subscribe inoo tahayna muuqaalkeena share garay like inoo saar si oo gaar asxaab badan oo ku maasanta daawashada.